casharadii barashada qaybaha forex-ka. Haddana waxaan ku cusub brokerka XM iyadoo aan soo qaadanay brokerada kala duwan sida lagu sameeyo registration oo laga furto real account. marka sidee real account platformka xasaan ka dhex sameeynaa MetaTrader 5 baan qaadanay. MetaTrader 5 saan kasoo dhex galeynaa la soco. waxaan sameynayaa toos baan brokerka u aadayaa real account ka ku yaalo my account oo 0.000 kan lacagta sidee loo dhigayaa lacagta la dhigaya maxay tahay anaga lacagta isticmaalno USD taasaan ku shubaynaa lacagtaas $500 ama waxaan ku shubaynaa $1000 ama $500 balance-ga. okay halkaasay ku qoran tahay account kani waa account really ah dhigi kartaa 100,000 baa ugu badan horay u soco account-kan withdraw funds markaa sameynaysaan waxay maqnaan doontaa intay maqnaan doonto halkaan ku ogaanaysaa marka hore oo aad account-ka amaba aad heshiis kala soo galaysa brokerradani way kala duwan yihiin password ka ka beddelay dokumentiyadaada oo Swift code ku qaadanayo idin tusin doono horay baan u sheegay account-kaaga islaamiga ka dhigi kartid haddii aad doontid account-kan islaamiga waxaa idinku sheegay 10 IQ option maanta waxaa ku jira 10 MetaTrader 5 oo aan brokerkan isticmaalaynana waa XM. marka waxa kala duwan labadaas sida loo kala isticmaalo forex-ka guud ahaan forex-ka uu midaysan yahay guud ahaan marka platformyo kala duwan bay ku dhex jiraan. platformkan waa XM brokerka ka hadli jirnay waa IQ option marka ase OTC waa u trade gareyn jiray kana waxa loo trade gareynayaa forex. okay labadaas qaab baan isticmaali doonaa waxay kala yihiin waa arki doonaa. halkan account-kani islaamic sidee looga dhigaa account-kaaga marka ku soo furinaysa islaamic baa dooran kartaa inaad ka dhigto account-kaaga oo qaab islaamiga u shaqeynaya. dokumentiyada laga rabo waa Swift code-ka iyo wixii la mid ah halkaas ayaad ka soo upload gareynaysaa upload baa lagu leeyahay dokumentiyadana JPG PNG iyo PDF badana kuma dirayaan waxay ku dirayaan JPG ama PNG oo ahayd kan sawirka kala image profile-kayga sense picture-ka uga bedela complaints aan sameeyaa. marka kan waxa weeye wuxuu noo sharaxayaa internal transfer si lacag ugu dhaxawilaa qof kale oo leh oo kan oo kala ah. okay account-kan marka waa muhiim inaad fahantaan haddii aad isticmaalaysaan forex kana hadda ugu fiican badanaa la isticmaalaa account-nadii kale amaba waa laga brokerada kale kana ka fiican xogaa XM uu waafaqayaa wadan walba aad joogtid. profile-keena sidee halkaan usoo sameyn kartaa marka account-kaaga furatid oo account-kaaga halkaan usoo upload gareyn kartaa oo account-kaaga usoo gelin kartaa password si u bedeli karnaa dokumentigeena si usoo upload gareyn karnaa. account-keeni wuu noo sameysan yahay account balance waa 00 si lacag usoo dhignaa. su-aashaan aad bay u badan tahay lambarkeena oo code number uu nagu soo dhacay email-keena residence address-keena wuxuu dhan halkaasaan kusoo saxnay waan fahanay taasi. account-kaas sida islaamiga uga dhignaa waa number 1 oo islaamiga account haddii aad Soomaali tihiin ama haddii aad tihiin dad muslimiin waxaa isticmaalaysaan mar walba islaamiga account. my account details-kiisina waa kan lambaradaadii magaca meesha aad joogtid ee residence-gaaga dokumentiyada upload gareyn doontid legal dokumentiga iyo dokumentiga kale oo aan ku sheegay oo
broker waa gaar, fx primas broker waa gaar. Marka brokerada ayaa sharciyo kala duwan leh. brokerada ugu wanaagsan oo marka la xusho ayaa muhiima. haddii aad tiraahdo waxaan soo gelayaa halkan, waxaan ku shubanayaa MetaTrader 4 ama MetaTrader 5, waxba ku tari mayso oo practice keliyaan sameynaya. waa inaad brokerka sii samaysataa real account-kaaga iyo dima account-kaaga, markaasaad trade garayn kartaan lacagta aad rabtiin. badanaa hadda update ma aha, MT4 ka kana update ah, weli suuqi ma furmin. suuqana xisaabaadkan ayaa ku jiro. suuqan marka waxaan uga faa'iidaysan karnaa annagoo kasii faa'iidaysana casharadiisii brokerkii aan helna. sidee brokerkii markaa usoo sameynaa, oo brokerkeennii emailku noogu soo diraya conformka. marka id buuna siinayaa, id-ga conformka. markaan conformka waxaan kusoo taabanaynaa emailkeena kasoo gelaynaa oo soo conform garaynaynaa. live chat sidee lagala hadlaa, halkaan ku dhufanaynaa. halkaan emailka waan la hadalnay, start chat baan leenahay kaliya. waa ku celinaynaa chat sida loo sameeyo. marka ugu horeysa waa inaad sameysaa si markiiba jawaab ay kusoo siiyaan. hello baa ku qoraynaa halkaan, way noo soo jawaabayaan. waayo live chatka mar walba support baa fadhiya. support baa la yidhaahdaa, halkaasaa laga support gareeyaa. wuxuu kusoo support gareynaya markiiba jawaab bay kusoo siinayaan. okay, waxaan soo aragnay xm inaan la sameyn karno ama inaan la xiriiri karno. hello. okay, sidii loo verify gareeyana haddaan intusin doonaa oo verify-ga account-kaan looga dhigto. verify waxa weeye in account-kaagii ka dhigto verify garee, soo saxdo oo lasoo ansixiyo. passwordka waa bedeli kartaa haddii aad rabtid. passwordkaagii positionka aad furanaysid iyo positionka aad kaga jirtid brokerkaaga waa inaad taqaanaa. deposit markaad sameynaysaan iyo marka laba waa kan account historygaaga.